والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. شرف بكل جيل نوتاحي إن هكذا السجون معنا يقوم عصبة إن نحل دولة قبطة أما نحل وزارة لو ريجو نحل وزارة لو ريجي مدة اللي بتشوفه صدق يلا 20 سنة قبل waxaan u malaynayaa way ku filan tahay dadka inaan 23 sano ka hor aan ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha oo aan u ahaa madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal. waxaan gelayaa maadaama ay waqti dambe iska tahay inaan soo gaagaabiyo wasaaradda warfaafinta oo wasaaradii aan ka imid waqti badanna aan joogay oo aan yaray oo ku dhow 1470 habeen oo macnaheedu yahay 4 sannadood inaan joogay halkan. waxaan ka qabay cuqdad mana jeclayn maskaxdaydana kuma jirin inaan wasaaradda warfaafinta marna tago. waayahay waqtigu waxbuu ku barayaa haddii suuqa wasaaraddan laga sheego wax dadku waa dartoodo warka suuqa yaallaa la qaadanaya, laakiin waxaan ka markhaati kacaya maanta inay wasaaradda warfaafintu wasaarad macno leh oo dad sharafli joogaan oo dad aqoonli joogaan oo aan wax ku bartay oo aniga hudayda wax badan i baray oo aan ka mid noqday bacda warbaahinta ama ha noqdeen private ama ha noqdeen public. waxaan wasiirka ugu bishaareynaya foobiyadaasi waa mid la qabo, iyaguna way ogyihiin shaqaaluhu 850 shaqaale ku dhow ayaa jooga. waxaanu kor ku maamuli jiray oo la socda in aan ka yarayn 3 urur oo saxaafadda ah iyo 2 kooxood oo fanaaniinta qaranka ah oo xidigaha iyo dayaxa iyo fanaaniintii qaranka oo wasaaradda toos uga tirsan. dadka intaa la-eg si milgale iyo maamuus ayaan ku maamuli jirnay oo aan tiradoodu ka yarayn 1500 oo qof marka lagu daro warbaahinta madaxa bannaan iyo ururada iyo kooxaha dibadda jooga. ma aanan soo kala caban wasaaradda intii aan xilka joogay, ma aanan soo kala caban nooc kasta oo ay u yihiin. muddadaa waxaanu ku wada joognay nooc kasta oo ay u yihiin wasaaraddu gobonnimo iyo sharaf iyo is-aqoonsi iyo is-ixtiraam iyo wada shaqayn. waxaan runtii wasaaradda kaga amabaxayaa iyo dadkaba inay wasaaraddu tahay wasaarad milgala oo sharaf leh. dadka joogaana ay dad aqoon-yahana wada yihiin, ama fan ha u yaqaanin fanaaniintii qaranka, ama ha noqdeen musicians, ama ha noqdeen technicians, ama ha noqdeen wariyayaal, ama ha noqdeen barnaamij soo saaran. waxay baran doontaa ereyo aad u fara badan oo ay wasaaraddu leedahay. waxyaalaha aanan marna ilaaweyn waxaa ka mid oo aan kala kulmay wasaaradda. waxaa subax iridda wasaaradda maalmihii madaxtooyadu soo saartay warqadda in aan qof
oo la isla gartay waxaa la shaqaaleeyo mooye inaan qof kale wasaaradda joogay. waxaan la kulmay 3 gabdhood oo yaryar oo aan da'dooda ku qiyaasay inay 17 ama 16 jira yihiin. 3 gabdhood markay ila hadlayeen 2 ka mida way ooyeen, ilmaa ka socotay. markii aan weydiiyey mid ka mida ayaa hadalka odhan karaysay, muxuu yahay dhibtiinu? waxay ii sheegtay in lagu amray in agaasimaha guud ku amray inay ka baxaan wasaaradda, oo markaa sidii maamulku u dhignaa ay ahayd. aad baan uga nahay, war jeejeestay meelo badan. aad baad u mahadsantihiin, aad baad u mahadsan, aad baan u jeejeestay gabdhaha yaryar iyo waxa sharcigu qabo iyo xaaladoodu halka ay marayso. agaasimihii guud baan u yeeray, waxaan ku yidhi war 3 gabdhood oo yaryar